markor waan kaga mahadcelinayaa baahda warbaahinta oo maanta meesha laga soo qayb gashay saarkeysaan maanta waxaan joognaa xaafadda Islii oo aan ugu talagalnay inaan raashin iyo wixii aan awoodno iyo wax aan ka soo helnay ganacsatada Soomaaliyeed halkan degan Nairobi aan ugu qaybino masaakiinta qaxootiga oo degan ama ku dhaqan magaalada Nairobi aad u fara badan yihiin laakiin waxa arkaysiin waxa waaye intii aan awoodno waaye inaan u qaybino sababtii maanta bisha waa bil barakeysan waayo bisha barakeysan Ramadaan oo waajib ay ku tahay qof kasta Soomaaliya oo muslim ah inuu gacan siiyo walaalkiis ka dhibaataysan marka waxaan ugu talagalnay ayadoo gacan naga siiyeen walaalahan gabdhaha walaalahan Soomaaliyeed Firdawsa iyo groupkooda ayada hal doonto ayadan waa ugu mahadcelinaynaa gacanta naga siiyeen hadda waxa arkaysiin waxa waaye qaar kamid ah raashinka ugu talagalnay waan u qaybinay hadda inta timid islaamahaas arkaysaan oo qaarkoodna ay xanuunsan yihiin qaar ay dhibaataysan yihiin inta kalena waxa ugu talagalnay in loo geeyo guriyahooda iyo meelaha degan yihiin loo qaybiyo marka aanu ka faa'iideysanayo waxaan rabaa mar kale in qof kasta Soomaali ah oo awoodo inuu wax qabto bishan barakeysan ay ka faa'iideystaan lees caawino waxaa jiro dad fara badan Soomaali ah oo aan afur haysanin oo aan suxuur haysanin oo aan soomi karin marka inaan xasuusano inaan wax u qabano inaan wax siino wax badan maaha qof kasta wuxuu awoodo ha yaraato ha badnaato in gacan la siiyo hadda ka hor ayaa waxaa la sheegay waxa jirta sheeko arwana in sheego magaalo ku taal magaalo kamid ah Soomaaliya ayaa guri ayaa waxaas irid soo garaacay nin baa soo garaacay oday guriga ayaa wuxuu yiri irid la furo waxa soo galay ninkii wuxuu ahaa dariska ah oo dariskiisa ah wuu soo fariisiyay wuxuu yiri maxaan ku qabtaa ninka wuxuu yiri walaal wuxuu yiri waxaan rabaa inaan lacag demis oday guriga iska lahaa islaantiisa ku yiri lacag keen oo aan ninkan miskiinka dariska aan siino lacagtii ayuu siiyay wuxuu yiri maxaa la lacagta maxaa ku sameynaysaa wuxuu yiri adeer wuxuu yiri 5 maalmood ilmihayga wuxuu yiri waxay cunaan ma haysanin raashin baa ugu iibinaya markuu baxay ayaa waxa soo laabatay islaantii waxa aragtay ninkeedii oo uuniis waxay waxa uunaysaa axsaan baa sameysay oo nig dariska waxba u qabatay wuxuu yiri waxa la oonayaa in 5 maalmood aan ogaan waayo in dariskayga caruurtiisa ay wax haysanin marka waa waxa weeye dib badan waaye inaan is ogaano waaye hatta waajib naguma aha inaan wax cunno inaan afurno in iyadoo walaalaheena hadda islaamaha kale oo aan ognahay ama aan maqalnay inay wax cun haysan marka waxa mar kale aan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan cid kastoo awoodo in la iska qabto in wax la siiyo marka walaashay aydan aan ka codsanay inay kalma ka tiraan ilaahay baa mahad leh thumma kadibna waxaan u mahad celinayaa ma aragtay dhammaan dadkii baxsaday iyo ma aragtay safiirkan u mahad celinayaa gartay ummadiisa u jirnaxay u damqaday taas oo ay ku dhisan tahay islaamnimada inta kadib waxaan rabaa inaan u sheego arintan dadkan qofkan miskiinka ah يعني إلهي سبحانه وتعالى قف كست إسقى هو يدش قاونته وكسر دعي قف كان مالك لسينا وامتحان كان مالك لسينا وامتحامين هاي وصبر كسالة إيه جاية مركا وحواي دت كمرك نار السقر وده هذا ويدينا يعني أقول له ما سلككم في سقر محا نار نار السقر سلك إيدين تجي هو جيني وحيدها ينقول نارين والعياذ بالله مركا أقوها رئيسة قالوا لم نكن من المصلين ما أن تكنجرن قضبك كحيجة إلابات وحواي ولم نكن نطعم المسكين مركا هالكاسو تاجن يدتك أن قوذنين مساكين تا